السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السياس أفوارجي وسياس إريتريان oo soo hogaamiyay dagaaladii xorriyad u dirka ahaa ee dalka madax bannaanida kaga qaatay sanadkii 1991 wadanka Itoobiya. Wuxuu dalkiisa madaxweyne ka noqday min sanadkii 1993 ilaa hadda oo la marayo sanadka 2020. Waa muddo 27 sano ah ayuu kursiga madaxweynenimada ee dalkiisa Eritrea ku fadhiyaa. waxayna mucaaradkiisa ku eedeeyaan inuu yahay nin qallafsan oo caburiye shacabkiisa isla markaana dalka ku maamulo gacan adag oo bir ah dilana ama ceeriye shakhsiyaadkii ka hor imaada aragtidiisa. wuxuu dhashay Asiyaas Afwerki labadii bishii Febraayo sanadkii 1946 wuxuuna ku dhashay caasimadda dalka ee Asmara. diintiisu waa Kristaan, shacabka uu maamulo waxaa ku badan dad muslimiin ah. wuxuuna sanadkii 1965 ka mid noqday ardaydii jaamacadda Addis Ababa. wuxuuna ahaa arday wax ka bartay kulliyadda tumaalnimada, laakiin hal sano kadib uu isaga tagay jaamacaddii. waxaana jaamacadda ka reebay caajis dhankiisa ka yimid oo ma jirin cid jaamacadda ka ciirisay. wuxuu Asiyaas sanadkii 1966 ku biiray jabhadda xoreynta Eritrea, taa oo dagaal adag la gashay gumeystihii Talyaaniga ee waddanka xoog ku haystay. kadibna Asiyaas wuxuu u wareegay jabhad kale oo Eritrean ah oo ku jirtay halganka xoreynta Eritrea. intii uu jabhaddaani dambe xubinta ka ahaa, waxaa Asiyaas u suura gashay inuu ka helo dalka Shiinaha tababar ciidan oo heer sare ah. wuxuuna sanadkii 1972 ku biiray Asiyaas garab ka go'ay jabhadda xoreynta shacabka Eritrea. waxaan lagu magacaabi jiray jabhaddaasi oo ka mid noqday Asiyaas xoogagga xoreynta shacabka Eritrea. Asiyaas ayaa intii uu ka midka ahaa jabhaddaani aad u shaqeeyay, waxaana sanadkii 1987 u suura gashay inuu noqdo xogayaha guud ee jabhadda. dhanka kale, ciidanka jabhadda waxay gacanta ku dhigeen dhul ballaaran oo ka tirsan dalka, waxayna ku sii siqeen dhanka caasimadda dalka ee Asmara. aakhirkiina waxay galeen magaalo madaxdii dalka ee Asmara. wuxuuna Asiyaas magac ka bedelay jabhaddii asigoo u bixiyey jabhadda shacabka ee dimuqraadiyadda iyo cadaaladda ee Eritrea. waxayna jabhadda Asiyaas u dooratay madaxweynaha dalka iyo xogayaha guud ee jabhadda. asiga ayaa isku haysta hadda labada jaga ee culculus. markii uu Asiyaas la wareegay jagada madaxweynenimada dalka, wuxuu ogolaaday inuu hal xisbi ka taliyo waddanka, waana diiday xisbi kale. wuxuuna diiday in la qabto doorashooyin xor ah. diidmadaasi oo u keentay Asiyaas inuu gudaha dalka iyo dibaddiisaba kala kulmo dhaleecayn ba'an, laguna eedeeyo inuu isku koobay dhammaan awoodihii dowladnimada. waxaa lagu waday in sanadkii 1997 la qabto doorashooyin guud, laakiin waa la qabo waayey sababtoo ah Asiyaas ayaa diiday in la qabto doorasho. dhanka kale, waxay bilaabeen mucaaradka oo garab ka helaya dowladda Mala Zanaawi isku day lagu doonayo in lagu rido xukuumadda Asiyaas Afwerki, laakiin way fashilmeen dhammaan howlihii ka dhanka ahaa Asiyaas. mar uu hadlay hogaamiyaha mucaaradka Eritrea, ninka lagu magacaabo Saylaasi, wuxuu dhahay axsaabta mucaaradka ee dalka waa inay qaataan hubka si waddanka loogu xoreeyo diktaatoorka waddadii addoonsiga ku sii wada shacabka, dhaqaalaha dalkana dumiyey, ummaddiina gaajo ku laayey. webkii caanka ahaa ee soo bandhigay siro badan ee lagu magacaabi jiray Wikileaks ayaa daabacay in diktaatoriyadda Asiyaas soo bilaabatay kadib markii lagu fashilmay sanadkii 1996 isku day dil oo lagu doonayay in lagu qaarijiyo Asiyaas. waxayna madaxtooyada Eritrea sheegtay in isku daygaasi soo abaabulay ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya Mala Zanaawi. sidoo kale, waxay 200 askari oo Eritrean ah sanadkii 2013 la wareegeen xarunta wasaaradda warfaafinta. waxaan lagu tiriyaa dhacdadaani mid isku day afgembi ahayd, laakiin lagu fashilmay. waxayna sanadkii 2014 qaramada midoobay ku eedeysay madaxda dalka Eritrea in si xad dhaaf ah ugu tuntaan xuquuqda aadanaha, oo shakhsiyaad badan lagu waayey jaalasha dalka, qaar kalena si xun loo cadaabay. sidoo kale, isla sanadkaasi waxaa warbixin dheer soo saaray ururka saxafiyiinta ee aan xuduudka lahayn, waxayna Eritrea ku tilmaameen xabsiga madow ee saxafiyiinta. dhanka kale, sanadkii 2017 waxay jaaliyadda Eritreaanka ee London abaabuleen mudaharaadyo ballaaran, waxayna bannaanbaxani ku dalbanayeen in xorriyad kaamila la siiyo muwaadiniinta Eritreaanka ah. waxaana kolkii hore keenay in la mudaharaado dowladda Eritrea oo tiro badan oo dugsiyo islaami ah albaabada isugu dhufatay oo xirtay. sidoo kale, waxay bannaanbaxyo ballaaran ka dhigeen qurbo joogta Eritreaanka ah dalka Faransiiska.
waxayna ku hor mudaharaadeen safaaradooda ku taalla magaalada Baaris. waxayna asiyaas ka dalbadeen inuu cadaaladda iyo maamul wanaagga dalka dib ugu soo celiyo. siyaasiyiinta xabsiga uu ka buuxiyeyna oo ooda ka qaado siyaana xurriyad ay ku hadli karaan. waxay kaloo sheegeen inay rabaan inuu meesha ka baxo nidaamka militariga ah ee dalka lagu maamulo. waxayna asiyaas iyo dowladdiisa ku eedeeyeen inay si xun ula macaamilaan dadka ku mudaharaada gudaha dalka. gabagabadii waxaa in la sheega mudan in Eritrea geeska Afrika noqotay duka cambaar leh, waayo waxay dagaal la gashay dalalka Itoobiya, Yemen, Djibouti iyo Suudaan. sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in ay Soomaaliya hub sharci darro ah u soo dirto.